Ha ku degdegin isticmaalka cudbiga dhagaha lagu nadiifiyo waxa kala kulmi kartaa dhibaatooyin aad u badan oo waxa dhaawac gaarsiin kartaa marinka dhagaha. Sidoo kale waxa dilaacin kartaa xuubka dhegta ama durbaanka dhegta. Maxaa yeelay cudbiga ama qoriga wuxuu gudaha ku riixaa dhukayga oo waxa ka dhalan karo in maqalkaaga hoos u dhaco ama gabi ahaan baad wax maqli weyso. Badanaa qofku uma baahna inuu dhagihiisa ka soo saaro dhukayga, khaasatan haddii uusan dhib ku haynin. Dhukayga ma ahan wasakh, waa dheecaan caadi ah oo ay soo saaraan unugyada marinka dhagaha, kaasoo loogu talagalay inuu guud ahaan dhegta ka difaaco waxyaabaha dhegta dhibaateyn kara sida waxyaabaha dhegta banaanka kaga imaan kara oo si fudud dhegta ku gali kara. Sidoo kale waxa uu ka hortagaa cayayaanka gudaha dhegta gali kara. Waxa uu dhegta ka difaacaa jeermiska sida fangayga. Sidoo kale dhukaygu wuxuu ka hortagaa biyaha ama shay'aha kale oo dareeraha oo u gudbi kara xuubka dhagaha. Ha isku dayin inaad nadiifiso dhagahaaga iyo kan caruurtaba. Haddii ay jiraan arrimahan, la xiriir xarumaha caafimaadka sida dhaga xanuun, wareer, caabuq, malax ka soo dareerta dhegta, qandho iyo wixii la mid ah. meeshan ku dheh ama xagga hoose ugu wac qof walba oo jecesha inuu muuqaalkan uu ka faa'iideysto share gareyna. Ma doonaysaa inaad ka mid noqoto xaga fadlan subscribe dheh YouTube channelkayga, sidoo kale like dheh page-kayga si aad u heshid talooyin caafimaad iyo cashiro cusub oo aan goordhow soo gelin doono. Wixii su'aalaha iyo cudurrada aad doonaysid inaan ka soo hadlo waxay ugu soo diri kartaan emailkan. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala.